بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن wanaagsan daawade halkan waa barta YouTube ee madasha wararka qodobada ugu waaweyn ee warkan aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeya Gaas Odawaa Yuusuf Raago oo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo culus ka wada deegaana iyo degmooyin dhowr ah oo dhaca gobolada Galgaduud iyo Mudug. waxaynu ku soo gudbin doonaa taliyaha Odawaa Yuusuf Raago oo halkaas kula kulmay saraakiisha sarsare ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. amro culus uu taliyaha bixiyay iyo guud ahaan wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira socdaalka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeya Gaas Odawaa Yuusuf Raago uu ku joogo qaybo kamid ah deegaanada Galmudug ayaan idiin soo gudbin doonaa oo warkayaga aad ku daawan doontaan. qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya Siciid Cabdillaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland oo qaaday tilaabo degdeg ah kadib guushii ay gaareen ciidanka maamulka Puntland iyo cashirkii lama ilaabaanka ah ay u dhigeen kooxda argagixisada ah ee markaasi Daacish. waxaynu ku soo gudbin doonaa tilaabooyinka bogaadinta mudan ee uu qaaday markaasi madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdillaahi Dani oo warka aad ku daawan doontaan. dowladda Masar maxay ka tiri heshiiskii Ankara? waxaynu idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Siisi oo war ka soo saaray heshiiskii Ankara ee Soomaaliya iyo Itoobiya dhexmaray. Masar door intee leeg ayay ka istaagtay arrintaas waynu idiin soo gudbin doonaa oo warkayaga ayaad ku daawan doontaan haddii Rabbi uu ka raali noqdo. Burundina waxay ka hadashay in aysan ka sii mid ahaanaynin howlgalka cusub ee Soomaaliya waynu idiin soo gudbin doonaa oo warka ayaad ku daawan doontaan. qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kordha daqiiqadaha kooban ee warkan aynu si wada jirka ah ugu jirnayaan daawadayaal daawan doonaa, balse aan ku xusuusiyo haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay barta YouTube inaad subscribe dhahdo gambaleelka aad furto muuqaalkeenana laag aad saartay muhiim ayuu noo yahay ee ha naga hilmaamin qaybta hoose ee faallada ama commentiga noogu reeb oorahdaada kaaga aadan wararka iyo warbixinadan kuu soo gudbinayno muuqaaladeennana sii sheer garayo saaxiibadaada la wadaag. mahadsani daawade. ugu horeyn warkayaga haddii aynu ku bilowno taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeya Gaas Odawaa Yuusuf Raago oo ku sugan qaybo kamid ah deegaanada Galmudug ayaa halkaasi ka wado dardargelin culus oo la xiriirta sidii loo dhameystiri lahaa howlgalka dalka looga saarayo kooxda argagixisada ah ee Shabaab. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeya Gaas Odawaa Yuusuf Raago ayaa isku maray deegaano dhowr ah iyo degmooyin dhaca maamulka Galmudug si gaar ah degmooyin dhaca bariga Galgaduud iyo sidaas oo kale koonfurta gobolka Mudug. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeya Gaas Odawaa Yuusuf Raago oo maalmihii aynu ka soo gudubno ku sugnaa degmada qadiimiga ah ee Ceeldheer ayaa halkaasi kula hadlay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan magaaladaas iyo magaalooyinka kale. waxa uuna kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa howlgalka dalka looga saarayo kooxda argagixisada ah ee Shabaab. intaasi kadib taliyaha ayaa bogaadiyay geesiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhabar adeega iyo adkeysiga ay muujiyeen iyo sida dalka dadka iyo diinta ay markaas ugu adeegayaan. Sareeya Gaas Odawaa Yuusuf Raago intaasi kadib waxa uu sii gudbay degmada Xaradheere ee koonfurta gobolka Mudug isaga oo halkaasi ka wado kulamo gaargaar ah uu la qaadanayo saraakiisha. waxa uu sidaas oo kale inta Xaradheere uu ku sugan yahay uu kormeer ku samayn doonaa talisyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin goobaha kala duwan ee halkaasi. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeya Gaas Odawaa Yuusuf Raago ayaa sidaas oo kale la qorsheenayaa in magaalooyinkaas uu kaga dhawaaqo dagaal culus oo kalena kooxda iyada oo la qorsheenayo in maalmaha soo aadan dalku uu si wada jir ah uga bilowdo howlgallo culus oo argagixisada looga saarayo goobaha gabaadka ay ka dhiganayaan ee maamulka Galmudug. degmada Xaradheere waxay qayb ka tahay degmooyinkii halgankan haatan soconayo loogu xoreeyay kooxda, waxaana la qorsheenayaa in magaalooyin kale oo dhowr ah markaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay howlgallo ku tagaan. taliyaha ayaa inta uu halkaasi joogo waxa uu wadayaa dardargelino dhowr ah oo la xiriira sidii loo ambaqaadi lahaa howlgalka oo muddooyinkii aynu ka soo gudubnay markaasi hakad ku jiray. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeya Gaas Odawaa Yuusuf Raago tan iyo dib u magacaabistiisa waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee furmaha hore uu gaaro isaga oo la qorsheynayo inuu ambaqaado dagaalada culus ee dalka looga ciribtirayo argagixisada. guud ahaan arrimahan ayaa ku soo aadayo iyadoo muddooyinkii dambe uu hakad ku jiray howlgalka dalka looga ciribtirayo kooxda nabadiidka ah. markana haddii aynu eegno dowladda Masar iyo sidaas oo kale warkii ay ka soo saartay heshiiskii dhawaan Soomaaliya iyo Itoobiya Ankara ku dhexmaray, madaxweynaha Masar Cabdifataax Siisi ayaa sheegay inuu si dhow ula socdo heshiiskii Ankara ay ku gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. sida laga soo xigtay madaxtooyada Masar, Siisi ayaa markaasi sidaas oo kale sheegay in wada hadal dhanka taleefanka ah uu la yeeshay dhigiisa ee Faransiiska Emmanuel Macron isagoo uu sheegay inuu rajeynayo in heshiiskii dhawaan la gaaray uu gacan ka geysan doono sidii loo heli lahaa amni iyo xasilooni waarta oo ka dhalata guud ahaan gobolka Geeska Afrika.
xasiloonida geeska Afrika iyo danaha qaranka Masar waa kuwo isku xiran ayuu yiri. Sisi waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in heshiiskii Ankara uu noqdo mid la jaan qaadi kara mabaadi'da sharciga caalamiga ah. Waxa uuna tilmaamay in Masar ay ka shaqayn doonto sidii Soomaaliya ay u heli lahayd amni iyo xasilooni haddii ay ahaan lahayd iskaashi laba geesood ah oo ka qayb qaadashadooda howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee cusub uu markaasi qayb ka noqonayso Masar. Dowladaha Masar iyo Itoobiya ayaa ku loolamayo inay ka mid noqdaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee la geynayo Soomaaliya. Xiriirka Muqdisho iyo Addis Ababa ayaa noqday mid kacsan kadib markii bishii Janaayo sanadkii dhammaaday ee 2014 Itoobiya ay heshiis la gashay maamulka Somaliland ka oo ahaa mid markaasi ay kaga kiraysanayso dhul badeed ay markaasi ka samaysanayso dekad iyo saldhig ciidan taa oo markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ay aad arrintaasi kaga carootay. Xulaadda Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa soo jiidatay indhaha gobolka iyo caalamka oo idil. Madaxweynaha Faransiiska ayaa booqashadiisii dhawaan uu ku tagay dalka Itoobiya waxa uu sheegay inuu taageersan yahay dadaalka Itoobiya ugu jirto sidii ay bad uga heli lahayd dalalka dariska ah si waafaqsan shuruucda caalamiga ah. Bartamihii bishii Diseembar ayay dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya kala saxiixdeen heshiis Ankara ku dhaxmaray kaas oo garwadeyn ay ka ahayd dowladda Turkiga. Kulankaasna uu markaasi goobjoog ahaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan kaas oo la filayo in qodobadii iyo waxyaabihii lagu heshiiyey markaasi ay dhawaan labada dhinac si toos ah uga heshiiyaan. Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud si wadajir ah ayay u xaqiijiyeen ixtiraamka iyo sidii ay uga go'an tahay madax banaanida, mabaadi'da iyo wadajirka dhuleed iyo mabda'a mid kasta midka kale. Madaxweyne Erdogan ayaa tilmaamay in heshiiskani uu yahay mid taariikhi ah iyo tallaabadii ay gaareen oo markaasi ah mid bogaadin mudan. Dowladda Turkiga ayaa dhowr jeer oo hore isku dayday inay labada dhinac markaasi heshiisiin gaarto waxay noqdeen kuwo miro dhal noqon waayo balse ugu dambeyn kulankii ugu dambeeyay ee Ankara labada dhinac ay markaasi ku wada gaarayeen ayaa waxa uu noqday mid markaasi heshiiskaasi uu noqdo mid miro dhal ah. Markana Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland ayaa qaaday tillaabooyin la xiriira kadib markii ciidamada maamulka Puntland dagaal ay kala hortageen kooxda Daesh ay guulo ka gaareen. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan Boosaaso ayaa qaaday tillaabo degdeg ah oo la xiriirta dagaalkii shalay ciidamadiisa ay la galeen kooxda Daesh. Ugu horeyn Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isbitaalka Boosaaso ku booqday qaar ka mid ah askartii ku soo dhaawacantay dagaalkii shalay kadib markii xubno ka tirsan kooxda Daesh ay weerar ku soo qaadeen fariisimo ciidanka maamulka Puntland ay ku sugnaayeen. Dagaalka ayaa dhaliyay khasaare kala duwan ka oo soo gaaray labada dhinac waxaana Puntland ay sheegtay inay dishay xubnihii guud ahaan weerarka soo qaaday oo ugu dambeyn ay soo afjartay. Dhinaca kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani wareegto uu soo saaray ayuu magacaabay guddi taakuleen iyo sidaas oo kale daryeelka dhaawacyada oo markaasi howlgalkii shalay ee markaasi kaga hortageen. Guddigan ayaa ka shaqayn doona garab istaagga askarta waxyeelada soo gaartay si looga warqabo xaaladahooda. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa tilaabadan uu qaaday waxay noqotay mid si aad ah loogu bogaadiyo xilli maamulka Puntland hore ugu dhawaaqay inuu dhawaan bilaaban doono howlgal culus oo kalena kooxaha argagixisada ah oo Daesh ay ugu horeyso isla markaasna ku dhuumaalaysanaya dhulka buraleyda ah ee deegaanada maamulka Puntland. Shalay ay ciidamada Puntland 10 u dhigeen koox Daesh ka tirsan oo weerar ku soo qaaday fariisimo ciidanka maamulka Puntland ay ku leeyihiin bari. daawada guud ahaan warkii aad kala socotay madasha wanaginta aad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga. haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay bartan subscribe dhagan baleelka fur muuqaalkana like saar muhiim ayuu noo yahay. qaybta hoose faallada ama commentiga noogu reeb oraahdaada kaagaadan wararkii warbixinadan kuu soo gudbinayno muuqaaladayna sii sheer garay mahadsanid daawade.